halkani waa Garaa TV daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doono xiisada ka dhex taagan ciidanka xoogga iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya. kudhawaad muddo toddobaad ah ayay taagan tahay xiisada ciidanka ka soo baxaya furmihii hore ee dagaalka iyagoo ka cabanaya mushaar la'aan. xukuumaddu waxa ay sheegtay in la bixiyo mushaarka ciidanka u diiwaan gashan iyadoo uu raacisay warbixinta diiwaangelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxay intaasi raacisay in ciidankan diiwaan gashanayna iska xaadiriyaan goobahooda si loo diiwaan geliyo. dawladda Soomaaliyeed ma ahan mashruuci cayrta ciidankuna waa meeshii ugu dambeysay oo dhaqankaasi uu ka dhici lahaa. maalmahan marka waxaa la lahaa ciidamo ayaan mushaar la siin, qof aan mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa la siin ma jirto. inta ay ka maqan tahayna waa intaan la diiwaan gelin. fadlan geeya goobaha loogu talagalay, ku diiwaan geliya, ku kontaroola, ku haya xuquuqdoodan aniga iga soo doona, markhaatina ka ahaada Soomaaliyeed. Garaa TV ayaa haddaba u kurgalay baarisna ku sameeyay sababaha rasmiga ay ka dambeeyay xiisadan, halka ay taal dhibaatada iyo isfahan waaga ka jira iyo sababta keentay in isbedel lagu sameeyo saddexda hoggaan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Tirikoobka ay si wadajir ah u sameeyeen wasaaradaha gaashaandhigga, maaliyadda, taliska ciidanka xoogga dalka iyo xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo Garaa TV Arkay ayaa muujinaya in tirada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay yihiin 16,000 oo askari. Tirikoobka ayaa socda November 2017 ilaa iyo March 2019. tiradaasi waxaa dheer askar boqoraal lagu qiyaasay oo dhaawac iyo tababar ku maqan iyo kuwa geeriyooday oo xaqii ay riyoodii kaga tageen u qaataan mushaar ahaan. waxaa kaloo uu jira ciidan gaaraya boqolaal askari oo u badan Shabeellada Dhexe, kaas oo ay u suurgeli weysay in la tirikoobo kadib markii taliyayaashoodu diideen in la diiwaan geliyo ciidankaas. tirada ciidanka xoogga dalka ee ku jira galka wasaaradda gaashaandhigga ayaa hadda ah 25,000 oo askari oo qaadanaya mushaarkooda muddo 2 sano ah oo ay talada haysay dawladda oo horkacaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida lagu xaqiijiyay tirikoobka ay sameysay dawladda Soomaaliya. 9,000 oo askari oo magac ay dawladdu u aqoonsatay inay yihiin magacyo been abuur ah oo aan jirin ayaa ku jira galka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay hayso wasaaradda gaashaandhigga. taasi waxa ay ka dhigan tahay in hay'adda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku dhacday kiiskii ugu weynaa ee musuqmaasuq ee ka dhex taagan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa qabtay in nidaamka cusub ee keedinaya xogta xisaabeed ee askarigu uu meesha ka saarayo in taliyayaashu lacag kaash ah ama cadaan ah ay ka qaataan bangiga dhexe si loogu bixiyo mushaarka ciidanka. waxa ay xukuumaddu sheegtay in ay u qaadatay go'aankaasi si looga fogaado musuqmaasuqa. waxa ay ku doodaysaa in aan loo dhaxay karin bangiga dhexe iyo askariga marka laga hadlayo mushaarka. warbixinta ayaa tilmaamaysa in 3 milyan iyo 200 kun oo dollar ay kaash ahaan gacanta ugu qaadan jireen taliyayaasha ciidamada xoogga iyagoo sheegi jiray in mushaarkaasi ay siinayaan ciidamada hoos yimaada. xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa aaminsan lacagtaas inay ku bixin wadadii saxda ah ee loogu talagalay, waana mid kaliftay sida xukuumadda ay sheegtay in ciidamada dib loo diiwaan geliyo lana ogaado tirada rasmiga ah ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. soo ifbixidda eedan iyo tuhunka ku saabsan in 9,000 oo magac oo been abuur ah ay ku jiraan tirada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xukuumadda ku qasbaysa inay isbedel ku sameyso saddexda hoggaan ee arrintan saameysay. waxaana ka mid ah hoggaanka ciidanka oo ka mas'uul ah tirada ciidanka, hoggaanka maaliyadda oo lacagaha ka soo qaadi jiray bangiga dhexe, iyo hoggaanka saadka oo ciidanka u qaybin jiray raashinka iyo wixii la mid ah. taliyayaashii saddexda hoggaan ee la bedelay ayaa xilalka hoggaamadaasi hayay muddo 7 sano ah. culays siyaasadeed oo ay siyaasiyiinta la heebta ah saareen madaxda sare ayaa la aaminsan yahay in ay ka badbaadisay in loo soo xiro ama la maxkamadeeyo kiiska hadda la isku haysto. Garaa TV waxa kale oo arkay taariikh nololeedka saddexda taliye ee loo magacaabay oo qabanayay xilalka ay baneeyeen taliyayaashii hore ee saddexda hoggaan. taliyayaasha cusub oo ah dhalinyaro da'dooduna ay tahay 30 ayaa ka soo qalin jebiyay jaamacado iyo akademiyaal ku yaala wadamada Turkiga, Talyaaniga iyo Malaysia. warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa in shirkadda Kasharam oo haysay qandaraaska fududeynta iyo bixinta raashinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laga joojiyay si haysashada qadaraaskaas
iyada oo dib loo xayeysiinayo qandaraaskaas maadaama ay isbedeshay tirada ciidanku ila ku dhow xukuumadda Soomaaliya ayaa u sheegay Garaa TV in tirada cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah 16 kan oo askari lagu saleynayo mushaarkooda iyo qarashaadkooda adeega kale ee ciidanku u baahan yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la siin jiray raashin ku saleysan 25 kun oo askari 10 kun oo kamid ah waxa bixin jiray Unisom iyadoo ay shirkadda Kashram ay bil walba ka qaadan jirtay dawladda Soomaaliya lacag dhan milyan iyo 500 oo kun oo dollar Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo ka hadlayay dhaqaalaha ay xukuumadda Soomaaliya ku bixiso ciidamada qalabka sida ayaa yiri 2017 inta dawladdeena ay jirtay laga soo bilaabo Janaayo ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso 89 milyan oo dollar 2018 waxaan ku bixinay 102 milyan oo dollar 2019 waxaan rabnaa inaan ku bixino ugu yaraan 107 milyan oo dollar 2016 iyo 2017 waxaa lagu bixiyay 43 milyan iyo 47 milyan waa nambaro waxaan rabaa inaan xisaabtano waxaan bilownay hadda in dib habeyn lagu sameeyo ciidamada qalabka sida taliyayaasha waxaan ka codsanay in askari walba la diiwaan geliyo mushaarkiisa markii suulka gacanta loo saaray kadib loogu rido bangiga si toos ah askari walba oo la diiwaan geliyeyna inuu ahaado askari jooga meeshii loogu talagalay inuu ka shaqeeyo waxaan rabaa askari walba oo Soomaaliyeed oo imaqlaaya inuu maqlo dib habeynta aan ku bilownay ciidamada in lagu sameeyo shaqaalaha waa lagu soo sameeyay sababta aan ciidamada ugu sameynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dib habeyn lagu sameyn boqolaalka milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin adduunyadu ma aaminayso waxaan rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha banaanka furunta oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhamaato xuquuqdiisa inuu helo laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dawladda Soomaaliya oo aad hotel waardiye ka tahay ama adeerka aad waardiyeyso ama been lagu soo qoray ama kan email ay jirto dhaqankaas uu ka soo dhamaaday inta aniga dalkan ra'iisul wasaare aan ka ahay xilligii xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la sameeyay tirikoobka shaqaalaha rayidka ah ee dawladda Soomaaliya si loo saxo loona hubiyo mushaarka shaqaalaha xilligaasi waxaa dhacay muran iyo buuq badan oo sababay in la bedelo agaasimayaal si loo hirgeliyo nidaamka tirikoobka shaqaalaha rayidka ah ee dawladda waxa ayna xukuumaddii madaxweyne Xasan Sheekh kala kulantay qaadista talaabadaasi dhibaatooyin waaweyn shaqaalaha dawladda inta la shaqaaleeyay la sharciyeeyay laga qaaday biometric system ayaa bangiga dhexe la geeyay qof walba meesha soo tagaa mashiinku inta farta saaro magal ogaado asiga ka bacdi mushaarkiisa meesha ka soo qaata uma sahlana wasiirku marka inuu maalin walba 5 kuwii hore laga saaray kuwan hal ay qor biometric inuu yiraahdo uma sahlan si biometricas qofka loo geeyna guddiga madaxa banaan ee shaqada muxuu ahaay ay soo martaa oo soo screen gareeyo oo keena meesha horta maanta sidii awal u sahlanaa jirto uma sahlana xayn shaqaalaha oo meel joogto iska taga inta la yiraahdo xayn kale in la geliyo meelaha qaarkood oo wali biometricas aanu ka dhaqan gelin systemkaas aanu ka dhaqan gelin waa laga yaabaa wali inay ka jirto xilliyaasha arrimaha siyaasadda iyo amniga Soomaaliya ayaa aaminsan xiisadani ay tahay mid maamul ayna ku saxan tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya talaabooyinka ay qaaday iyo qaabka ay u wajahday in la tirikoobo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed daawadayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka gaarka ah oo aynu ku eegaynay xiisadda ka dhex taagan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya